بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد الرحمن أحمد والسلام كم إذا دمير لها الأول كنا المقعد البرعة يا حرينت قبل كتقدر لكن قاعد بريا ما نصير درين شيء عن كذا هلا حد جيلو بيستيج لا عن كعبد المريض دراسته كل شيء أها شراء صومالية ألوان صوماليات كارهان أنا قاعد أخوالي شو صغيرة لكن كنا الصومالي قالوا حاعة marka uu qof martihi ku yimaado soo dhaweyn inuu ahaan tirlay maxay saray haweenka Soomaalidu inay ixtiraam gaar ah ay fiican tahay meesha yimaadaan inay ku yeeshaan ama Hargeysa ha noqoto ama Jabuuti ha noqoto ama Muqdisho ha noqoto ama Jigjiga ha noqoto meel kasta oo qofka Soomaaliga ah degan yahay qofka hal abuurka ah ama qofka Soomaaliga ah magaca leh inuu ixtiraam iyo soo dhaweyn ku yeesho way fiican tahay kale kale hadii lagu diidayo inuu Muqdisho ama ka soo jeedo ama hay'adaha Soomaaliya waxaan u sheegayaa in saraakiishii militariga ahayd ay imanayaan magaalada Hargeysa oo qaarkood ugu soo dhaweynayo in maxay kale kuwa siyaasiyiinta sheeganaya imanayaan sababka abwaanka Soomaaliyeed ee aan hubka wadan ee aan qoriga sidan ee aan dagaal wadin ee Soomaali wada jecel ee aynu daawano barnaamijyadiisa ee aan xumaan iyo waxay kale wax Soomaali sheeganayna ku xaldin in la xiro soo dhaweyn habada soo inama la soo dhaweynay in la xiro in la celiyo aadiya aad baan uga xumahay waxaan kala ogahay oo xaqiiqo ku jirta maanta hadaan Soomaali ahayn noqon lahaa amba xabash ha noqdo amba Kenyan ha noqdo ama South Africa maana walba inamadeena gubaysa ha noqdo hadii ajnabi ahaa oo noqon lahaa waxaan shaki ku tiirin in roob cad loo dhigi lahaa lana soo dhaweyn lahaa marka anigoo la hadlaya waxaan kula hadlaya afka ahaan runtii xiriir lama sameyn laakiin muujinaya inaan la hadlayo baan kula hadlayadan marka waxaan ku iri hadii aad amxaar noqon lahayd ama tigray oromo ama Soomaaliga iyo ehelka miiraaga South Africa ugu bishay qoralka nagu daarta inta saan cadaalad ku nool aaga Yurub oo dhan ama passport leeyahay American bixiyay qarligaaga laguma xireen adigoo oo jooga aflagaado iyo maamulkeen eray xumaankeena ayaankaagu waa kii ku dhigay aradka Soomaali ee haddana abwaan ka dhigay arrin ku diiday iridaha Hargeysa ilaa aaga xamar oo dhan oogada tagdheeriyo ilaa awdal iyo soolba ixtiraam adaa ku leh haddaan eela doonin Soomaali waa ehel haddaan leys ilaaweyn waday qoray ka wada tin hadii aysan kiri karino hadii loo abtiriyo loo dhaho kala irdhaysiya isku wada imanayaan dhamaan awoowayaalkeena isku uur haday noqon lahayd kalama oydeeno ruux aan islaam ila ahayn oodna ila oolin oogada midaan ii ahayn ehel warkii daaye afka aan ku hadalniyo aqoon ariga geeleena oromiyo tigreeda fadhiya arabka Soomaali maxaa asafis ajnabi fadhigay aanan ila dhalanin aqoon gaarniya wada tihi aan wax garanaynin hal abuurku ehel buu ahaa aaba wada dhalay goormuu agoomoobay oo ooda kala yeeshay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.